السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني مكوهن وين تهي مروه إنا نقطيد مس مروه ما تهي هدي أد مروه تهي وحن كل وداقيا شان وح أو كاقرصون أو أد قبتيد شان تاسو وشان شقو يكبضن بو هدي أد مروه إهن أو أد كوهن وين تهي إنا أد مروه نقطيني هكو دقدقين وايو مروه نقشادو وح فضود معها وحلقي على مروه دا مركا أن نقونيسي إن لبا شيء أي سوابتو شيء كواد إن مسكحداadu ay sababto shayga labaad iyo in qalbigaagu uu sababo hadii ay maskaxdaada sababto waxa dhacaysa in laab kacay kugu sababayso ama ay kugu sababayso in qof uu kugu darqinaya inaad marwo noqotid taasina badana waxa ay ku dambaysaa inay fashilanto laakiin tan qalbigaaga ka iimaanayso waa mid badana ay sababayso in kaasi uu ahaado mid guuleysta marwo noqoshadu wax fudud ma aha marwo noqosho waa booska shalay aad joogtay inaad ka tagtid boos kale aad tagtid marka aad boos kale tagaysidna waa inaad adigu jadwalkaaga iyo waqtigaaga iyo waxyaabahaagu ay ahaadaan wax cusub fikirka aad shala lahayd ma ahana waa inaad fikir ka duwan aad la soo baxdaa markii aad marwo noqotid dhanka shaqada marka loo yimaado waxaan ku xasuusinayaa 5 shaqo oo aad qabanaysid oo aad kaga badnaa doontid qofka aad markaas marwo u noqonaysid waxa laga yaabaa gabdho badan markii marwo noqdaan in shaqada ay guriga ka qabanayaan ay u muuqato kaliya in ay ka awood badan tahay shaqada uu soo qabanayo qofku laakiin shaqada aad guriga ka qabanaysid way ka awood badan tahay waana ka miisaan culus tahay shaqooyin kale ay soo qabanayaan ay banaanka ka soo qabanayaan marka uu hal shaqo soo qabanayo adigu maalintaas waxa laga yaabaa 5 shaqo inaad qabanaysid shaqada koowaad ee aad maalinta qabatid waxa ay tahay dhakhtarnimo way caruurta markii caruur aad dhashid ee caruur ku joogaan waxa laga yaabaa inaad ka fikirtid kan xanuunsanaya qandhada hayso waxa laga yaabaa kan cunada ku margaday inaad ka fikirtid waxa laga yaabaa kan dhaawac yiriidka soo gaaray inaad ka fikirtid ka fikirkaasi waxa ku dheer sidee dawo ku helaayeen inaad kula dadaashid haddii uu lacala dhakhtar yahay ilmaha caruurtooda waxa laga yaabaa inuusan asigu ka fikiraynin dadka uu dawada siinayo kaliya uu u qorayo guriga markuu yimaadana haddii uu la yimaado isbedel xanaaq iyo neerfo shaqan ka imid shaqada aad qabanaysaa ka tira badan waayo 5 ayaad qabanaysaa shaqada labaad waxa ay tahay doobilla ayaa tahay waayo gurigaasi waxa dhar yaalo dhan adiga ayaa dhaqa shaqada saddexaad waxa ay tahay nadiifiye ayaa tahay guriga waxa yaalo dhan adaa nadiifiya shaqada afraad waxa ay tahay cunno kari ayaa tahay cook dadka guriga degan oo dhan waxa shanaadna waxa ay tahay tarbiyeen caruurta labada isqabata iyo kan wax xun ku hadla iyo kan wax dhibaato wadaba waxa aad ku dadaashaa inuu wax saxo shantaas shaqo marka aad guriga ka qabatid qofka guriga kula joogo ama uu ku dhaxayana hal shaqo kaliya oo magaalada ka soo qabanayo waxa xaq u leedahay shantaba in laga caawiyo iyadoo aan la fiirinaynin dhaqankeena Soomaaliyeed waxa uu yahay in qofka haddii uu soo shaqeeyo kaliya biilkaasi uu ka fikiro laakiin waxa ka muhiimsan ilmaha waa la wada dhalay haddii aan guriga wax laga wada qabanaynin oo aad adiguba 5 shaqo ayaad guriga ka qabanaysaa 5taas shaqo haddii aan laga caawinaynin mar walba waxa taagnaanaya buuq isqa qabasho aan la garanaynin meesha uu ka imaanayo haddii midka kale uu caawiyo uu ku caawiyo fikirka uu ku caawiyo aqliga uu ku caawiyo wax qabashada waxa sahlananayso ilmo tarbiyeysan oo idin fahma in guriga ay idin joogaan haddii uu ku fikirayo kaliya anigu banaanka ayaan ka soo shaqeeyay adiguna guriga ayaad ka shaqeynaysaa guriga shaqada way ku badan tahay waayo haddii awood la dhahayo ninku awood ayuu leeyahay oo wax ku qaban karo laakiin adigu haddii la dhahayo ninka asa awood badan ee waxan qabanayo adigu awood waa leedahay waayo 5 shaqo uu san qaban karin ayaad qabataa hal mar ayaad isku qabataa waayo 5taas shaqo haddii aad banaanka u baxdid doobilaha ragga doobilaha ah shaqo gooniba u qabtaan ragga cunnada kariya gooni ay u qabtaan laakiin ma jiro qof dhahaya dhakhtar ayaan ahay maanta dhakhtar ayaan fadhiisanayaa birina maqaayadaas cunno ka karinaya iskuma keeni karo laakiin adigu guriga marka aad joogtid labadaas iyo 3 iyo 4 iyo ka badan ayaa isku keeni kartaa iyo odagaba inaad isfahantiin waa isku keeni kartaa haddaba ujeedada videogan u duubaya waxa ay tahay iscaawinta iyo isku soo dhawaanshaha iyo wada hadalka waxa ay sahlaysaa in xiriirka guriga uu ahaado mid adag haddii laakiin xiriirkaas uu ahaa mid ku soo bilowday maskaxdaada waxa sahlanaanaysa buuq inuu bato waayo xiriirku wuxuu ka yimid maskaxdaada laakiin qalbigaaga ka muusa imaanin haddii uu qalbigaaga ka yimaado qofkaani qalbigaaga aasisay waxa aad ku siisay ayaa jira mar walbana waa ku joogaysaa laakiin mar walba oo aad isleedahay marwo noqo ha ka noqonin maskaxda marwo ee qalbiga ka noqo ka aad qalbiga marwo ka noqotid waxa ku sahlanaanayso ilma caafimaad qaba inaad dhashid
waxa kuu sahlanaanaysa nolol caafimaad qabta inaad ku noolaatid waxa kuu sahlanaanaysa qof caafimaad qaba oo xiriirkaaga caafimaad u qabo inaad marwo u noqotid mar walba waxa aad ku dadaashaa in qalbigaaga aad kaashatid haddii ay marwanimada xataa ka soo daahdo waxa dhib la ma aha waayo intaad marwanimo buuq leh aad ku noolaa lahayd waxa dhaanta in guriga hooyada aad joogtid waayo noloshu iyadoo iska gaaban bay haddana u baahan tahay qof noloshu markaasi aad isku wada fahmaysaan waayo waxa la sameynayo oo la abuurayo ama la isku keenayo waa guurku marka uu hagaagane waxa idii hagaagaya qalbiga waxa idii hagaagaya tarbiyada awlaada wuxuu ahaanayaa gurigiinana guri mar walba farxad loogu yimaado haddii aad videogan ka heshay waa saaxiibka Shaahid Baasani oo ku dhahaya asxaabtaada la wadaag waa kaaga mahadcelinayaa fikrada aad commentiga igula wadaagtid waan kaaga mahadcelinayaa subscribe-ka ay saartay mar walba adduunada ku nooshaane waxaan ku leeyahay Allah kugu xifdiyo assalaamu calaykum